السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan dal iyo dibadba. walaalayaal salaan kadib halkan waxaan u soo galay mataqaana mowduuc aan ayaamahan ka hadlayay mataqaana dhalintii Soomaaliyeed u bixi Soomaaliyeed ee lagu xirxiray magaalada Laascaanood xarigaas oo ay geysteen mataqaana maleeshiyaadka SNM ee magaalada ku sugan. xarigaas runtii ahaa meel ka dhac mataqaana xadgudub ay ku sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax allaale waxay dambiya oo ay geysteen aanay jirin aan ka ahayn inay mataqaana maalmahooda wadankooda xorriyada ay maamuuseen ay sharfeen ay kulamo ay ku dabaaldegayaan ay qabsadeen. taasna waxaa ka dhalatay kacdoon shacab oo ay sameeyeen dadka ku nool magaalada Laascaanood guud ahaan iyo dadka bulshooyinka gobolada SSC iyo gaar ahaan in badan oo kamid ah dadka Soomaaliyeed oo meelo duwan ka hadlisay. dadka Soomaaliyeed inta midnimada jecel cadaaladda jecel isla markaana dulmiga nacab walaalayaal reer Laascaanood waxaan leeyahay guul baad gaadheen guul inaad gaadheen mataqaana nin ragana waa ogyahay nacasna loo sheegi maayo. walaalayaal baaqiyadii iyo go'aamadii kharaara ee aad iska soo dabadirayseen waxay kaliftay in 24 saac muddadii yareyd ee aad u qabateen dhammaan xorriyadoodii lagu siiyay dhalinyaradii magaalada laga qafaashay ee laga afduubtay. runtii waxaas waxay ahaayeen mataqaana lama oran karo xarig waxay ahaayeen afduub iyo qafaalasho. runtii markay arkeen go'aamada kharkharaan ee aan ka laabashada lahayn iska daba jooga waxay garowsadeen runtii xaqiiqada meesha ka soo socota iyo xaaladdu inay faraha ka sii baxayso taasoo mataqaana kaliftay inay mataqaana dhammaan caruurtii dadkii mataqaana magaalada Laascaanood ka afduubteen inay sii daayaan oo haddana ilaa hadlayo ilaa shalay galinkii dambe la sii daayo ay xor yihiin magaaladoodii ku soo socdaan oo ku soo wajahan yihiin. walaalayaal magaalada waxaan dadka jooga waxaan ugu baaqayaa inaad dadka halyeeyadaas waa halyeeyo dhalinyaradaasi weligood dariiqaas ay ku taagnaanayaan waxa loo handadayo mataqaana loogu caga juglaynayo waa in wadada saxda ah laga leexiyo oo ay ka tanaasulaan mataqaana midnimo doonka inay isku hayaan dalkii Soomaaliya dalkoodii ay jeclaayeen oo awaawayaashood hadda ka hor u soo dhinteen u soo dhaawacmeen xabsi loo geliyay mataqaana u qaxeen. marka walaalayaal waxaan leeyahay dariiqaas waa dariiqa aad guusha iyo sharafta iyo karaamada iyo ciisiga ku gaaraysaan ku socda. runtiina nimankaasi waxay garowsadeen idinku aad tusteen inaan mataqaana cid idinku haysan kartaa mataqaana xoog aanay jirin ma garanaysaan kadibna haddii ay si falalka guracaan ay ku sameynayaan ay ku sii socdaan inay mataqaana ay keenayso kacdoon iyo xaalado mataqaana faraha ka baxda oo ay u caali waayaan. runtii markay arkeen walaalayaal inaad rabtaan inaad ka xaajo qaadataan oo wax allaala wax idinkula kacaan aad kula kacdaan oo hadday cid idinka afduubtaan aad ka afduubataan oo hadday cid idinka xiraan aad ka xidhaan waxa weeye garaad la xiro leeyahay afayeen la xiro aflixiyeen xiro leeyahay. waxaan idinku dardaarmayaa walaalayaal tala iyo baaqna isku siinaya inaad ka xaajo qaadataan nimanka ka ficil qaadataan mataqaana aad hadday qof idinka qafaashaan aad ka qafaalataan xadgudubka ummad iska ilaalinaysaan wax allaale waxa idin geystaan waa u geysanaysaan waana inta sharciga islaamka iyo Soomaalinimada iyo mataqaana sharci gaar iyo mid islaamintuba idin ogashahay. waxaan la reelayaa reer Laascaanood guul baad gaadheen baa leeyahay mataqaana inaan xoog la idinku haysan kareenina cid walba aad u sheegteen laakiin taas waxay ku timi waa midnimadiina. waxaa la idinka rabaa inaad midnimada sii xoojisaan midnimada dhexdiina ah faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah taas in baaqiina loo dhaganignaado in go'aamadiina si degdeg ah loo fuliyo taas walaal midnimadaas ay ku timi. waxaan idin rajaynayaa inaad midnimadaas mataqaana aad ku faa'iideen aad sii xoojisaan tafaraaruqana aad iska ilaalisaan. tafaraaruqina waxay faa'iido u tahay horjoogayaasha SNM kuwa manaxayaasha ee markafayaasha ah ee haddaanay qof xirin haddaanay qof jirdilin ee aan gam'aynin ee aan seexanaynin ee mataqaana dhiig ku mabay shacabka Soomaaliyeed oo u shaqeeya mataqaana kuwii horeba loogu yaqaan horeba u caadaystay shacabka Soomaaliyeed xataa kuwa burcaya Hargeysa jooga leyntooda iyo xirxiristooda. waxaan leenahay meel kasta qof Soomaaliyeed oo jooga oo ku dulman yahay waan u hadlaynaa reerku daba ha ahaado gobolku raba ka soo jeedo degmadu raba ha soo jeedo cidda dulminaysana waxa weeye waa si adag baan uga hor imanaynaa. marka walaalayaal waxaan leeyahay guuleysta sharaf iyo karaamo iyo cisaad muujiseen waxaan midnimadaas mataqaana muhiima midnimada halka ka sii wada guul iyo gobonimo aan idin rajaynaa. assalaamu calaykum.